صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيدي بشبركة سنة رمضان كنا في البقرية فرتك هجرة وحينو كجرنا سؤاله دينيها أنه كيف أيدي سنة فضل الشمحان شيخ مردر هذينو بلا بنو سؤالها سؤال شكوبات سائل كي نسوي دي وحليه وحنا يقول دل يرى وحن شوقا ودنا دخليش ودنا كمية جارهان ودنا كقدر هو يدي أو شوقته ودنا ماذا يوروب أيام وحنا كل عذيب يردحن دون ويقالتها دودنا أدب وعلوصتها هاي وعنا وباهنتها مركا ما يسكع فريقته هوي سؤال شلبات معجونكو صون كمتشبيا معجونكو وبرج كلاقو عضيضو الدودة وطاء صون كحميلا سؤال صدحات روح الضمر عذر ممارسان كرتا بشهر رمضان مناكو بحي كرتا سؤال أفراد قف أنتو كان صون مكان صحية سؤالها سفر تاسي صون كسابسين سدح سؤالو يقولنا عبادات كسابسان بين راعيننا سؤال شناد مقعيسى وحكو شيغي أما وقبل مريم ظاهر وحي تري وحي شيخ ويدين لها ilmaha isagoo xafaayad xidhan ayaanu istijiyaabay tiri laakiin gacanta waxbaan isaga dhigaa arintaas weysadeeda wax ma yeelaysaa magacayga waa Abdul Fataax buu yiri oo ku nool magaalada Hargeysa sheekh hadii adiga oo weysaysanaya aad biyaha aad ku luqluqanaysa aad liqdo soonkaagii arintaasi wax ma yeelaysaa su'aasha ku xigta waa Shamsa Abdullaahi waxaan joogaa bay tiri Saudi Arabia إن هو أي حاجة كدون سبعة ترين تكتب قبلنا ولا نهاية باكب حين إيسا وحبا كدمن أنا قلنا قاد ما كان أحسن قاد كان إيبيا وحما كقدر يكرا أنت كدمن أنت أصل الشيخ إسرائيل. بسم الله. سؤال شهراء دوّلا أي قادنا إيسا هو يلا iyada oo ka maarmi weyda ama ay dawadu xiriirsan tahay bukaanna ay tahay baxanta waxaynu fahmnaa inay tahay TBD dawada TBD-dana lama kala jiro 6 bilood dawadeeda iska qaadanaysaa rabadaanna way iska cunaysaa kadibna way soo qalaynaysaa ilaahay baa saacadeeyay quraanka fi suurati al-baqara waman kaana mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra qofku hadduu rabadaan buko intuu iska afuro ayuu soo qalaynaya maalmihii ka tegay in la eeg dawada bahashan macjuunkan ilkaha ee lagu cadaydo waa lagu cadayan karaa laakiin qofku waa inaanu liqin wixii dheecaanka ahaa ee dee muudka ahaa ee dhadhanka lahaa waa inuu iska dhameeya waana inuu ogsoonno ilkaha aad bay ugu raagtaa hore ugama baxdo qofkii isticmaalay uu garanaya marka inaad iska daysaabaa fiican mar haddaanad muudkii iska dhamayn karaynin waad isticmaali kartaa laakiin inaad iska daysaa fiican cadarka qofku markuu sooman yahay waa maydhan karaa cadarna wuu marsan karaa dharka wuu bedelan karaa waa saliidaysan karaa intuba waa nadaafadiiyo waa sax rag iyo dumarba way marsan karaan laakiin dumarku dabadda lama bixi karaan hadday rabadaan tahay iyo hadday bilaha kale tahayba nabiguna wuu ka digay calayhi salaatu wasalaam qofka taariku salaadka wuu soomayaa oo soonka ka tag oran mayno waa laba waajib oo mid walba gaarkiisa ilaahay baa ugu leh laakiin waxaan leenahay salaada ku dar oran mayno haddaana tukanayn soonkana iska daa oo cibaadooyinku wanaaji mooyaane ka tag ma leh cibaadadu lama yidhaahdo ama wanaaji ama iskaga tag laakiin waxaa la yidhaahdaa wad oo wanaaji marka qayb uu hayaa cibaadadii oo soomkiya taariku salaadki laakiin salaadii baa ka maqan salaadana ku darbaynu leen ruuxa dumara tiri ilmahaygaan u istijeeyaa haddii gacantaadu ay gaadhayso
meelaha qashinkuu ka soo baxayo saxarada iyo kaadida ilmaha yar dib baad u weysaysanaysa haddii laakiin wax kaa xigaan oo aanad taabanaynin weysadii kaama jabayso weysada waxyaabaha jabiya waxaa ka mid ah calaancalaha cad oo qofku uu ku taabto meesha saxarada iyo kaadidu ka soo baxaan ama tiisa ha ahaato ama ta qof kale ha ahaato waxyaabaha mubdilaat ulwuduu ee weysada jabiya ayay ka mid tahay marka labadaasunbaad u kala eegaysa markaan weysaysanaya baan biyihii weysada liqay haddii ay kaa siibteen ama adigoo aan filaynin oo is-ilowsan aad liqday dhib ma jiro weysadii waxba kaama noqonayso laakiin haddaad u kastay weysadii way kaa jabaysa oo way kaa buraysa labadaasaa loo kala qaadayaa qofku isagoo is-ilowsan markuu liqo ama adigoo luqluqanaya ay si degdega kaaga siibtaan oo awooddaada ka baxsan soonkii waxba yeeli mayso ukaska unbaa wax yeelaya soonka si ukasa aad u liqday hooyo ma kaga bixin karaa lacagtii jaadka aan ka sameeyey xajka iyo cumrada maya kagama bixin karaysa qaadku waa xaaraan qaadku lacagta ka soo baxdayna waa xaaraan marka adiguna ku xaji maysid cuni maysid sadaqaysan maysid qof kalena kaga bixin maysid wallahu aclam jasaa allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaaliyo su-aalaha arrimaha bulshada ayaad moodaa inay maanta aada u badan yihiin ilaa 9 su-aalood waynu isdabagelin doonaa insha allahu tacaala su-aasha koobaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay waxaan ahay nin ganacsada oo baayic mushtara shirkad baan wax ka amaahday si aan ganacsigayga ugu hormariyo 2 sano ayaanu ku ballannay 2 sano waxa markaa aanu ku ballannay buu yidhi in ay percentage-ka ay fuusho lacag dheeraadihi lacagtaa dheeraadka ah ee lacagtii aan ku amaahday ka dheeraadka ah miyay markaasi wax yeelaysaa ma khilaafsantahay shareecada islaamka su-aasha labaad waa nin ku sheegay magaciisa Bashiir oo jooga Soomaaliya wuxuu yidhi sheekh hooyaday ayaan kaga soo tegay buu yidhi wadannada Yurub aan ka soo tegay hooyana waxay leedahay buu yidhi ii kaalay oo ii imo aniguna waan shaqaystaa oo waxoogay waan ka dhiga adayga marka arrintaas ma dembi baa iga haysta inaan dib ugu noqon waayo hooyo su-aasha saddexaad wuxuu ku sheegay saa'ilka soo qoray magaciisa Cabdisamad Axmed waxaan joogaa buu yidhi Addis Ababa dalka Ethiopia wuxuu yidhi sheekh waxaan arday college ama boarding ku xareysan oo ku jirta cunooyin baa meesha lagu sameeyaa buu aan meesha ku leenahay xaraan iyo xalaal bay isugu jirta qolo walba cunadooda ay cunaan laakiin waxa jirta buu maalmo gaara oo ay xusaan kristanka oo cuntooyinka la isku daro cunto isku mid la sameeyo oo kala doorasho aanay jirin marka maalintaas gaarka ah cuntadooda khaaska ama la cuni karnaa su-aasha afraad wuxuu magacaygu waa Muniir Maxamuud oo jooga Hargeysa wuxuu wiil aanu ilmaadeernahay ayaa wuxuu mehersaday gabadh waxa soo baxay buu yiri muddo kadib inay gabadha uur leedahay 2 bilooda hadii la weydiiyay wuxuu arinta waanu isla ogeyn waxaanu ku ballanay inuu ilmahaasi oo amaano isla ogeyn inuu heshiisku ay ilmaha yagi yahay kadibna waa la isku meheriyay meherka noocaasa miyuu sharci yahay buu leeyahay ma ansaxaya sheekh diintu maxay ka qabtaa su-aasha shanaad gabadh baa soo qortay waxay leedahay ninkaygu qaadka iyo sigaarka iyo daragada kale buu isticmaalaa waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah oo salaada u kacaya baa wuxuu igu yiri ilaahay ma isku qabiil baatiin aad yaani ugu cibaadeysanaysaa hadalka noocaasi miyuu wax yeelaya marka xiriirkii guur ee naga dhaxeeyay mase kula sii joogi karaa bay leedahay arrinta noocaasa su-aasha kale waxa soo qoray nin magaciisa ku sheegay Maxamuud Walaaleeye oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu yiri dadka lagu soo eedeeyo had iyo jeer khamriga iyo zinada iyo diincayga dad baa u dooda ehelkooda ah ama gar yaqaan iyo wax la mida iyagoo u qiildeeyo oo marka qaar yiraahdo uu waalan yahay ama aqligiisu ma dhana haday laba sinaysta yihiin aynu isku meherinaba iyo qiilal noocaas oo kala ah u qiildayga noocaasi shareecada islaamka muxuu ka qabaa buu leeyahay su-aasha toddobaad nin baa soo qoray wuxuu waxaan ay wiil dhalinyaro ah culimadu waxay had iyo jeer nagu dhiiri galiyaan buu yiri waan magaciisa Axmed ku sheego Hargeysa joogo culimadu waxay nagu dhiiri galiyaan buu guurka guurkiina sheekh aad buu cuslaaday buu yiri meherkiina intu waa qaali alaabta ugu qaalisanna way doonaysaa odayga yarad buu rabaa islaantii lacag isbarasho abay oo hadda la bartay bay haddana mar labaad doonaysaa fijaanno wax lagu soo sameeyo xaaladdu way adag tahay waxa soo dhan ma awoodno diintu maxay ka qabtaa arrinta noocaas maxaa si xala ayuu leeyahay ninka dhalinyarada ahi gabadh baa waxay leedahay waa su-aasha 8aad wiil ayaan la sheekaystaa ballan guurna waanu gallay hooyaday baa arrintaa ii diiday bay tiri marka ma hooyaan
yeelaa mise ballanta ayaan oofiyaa oo wiilkaasaan guurka la qaataa su-aasha ugu dambaysa su-aasha sagaalaad wuxuu hi wiilka soo qoray ama qofka soo qoray baryahan dambe waxa soo batay in labada qof ay isguursanaya ay intaan guur kuba dhicin sawiradooda ay meelaha ku soo dhajiyaan ama baraha bulshada ama baabuur iyo wax la mid ay ku soo dhajiyaan arrinta noocaasa iyadana shareecadu maxay ka qabtaa sheekh maxamed kolley way bateen su-aaluhu waynu soo koobkoobi doonaa insha allahu su-aasha la xidhiidha baanka iyo waxaan laga amaahanayo nidaamkan imika baananku inta badan ay wax ku amaahiyaan baanankan islaamiga wuxuu u badan yahay shayga loo yaqaano muraabaxa intuu baanku wax soo iibsado inuu qofka wax ka sii iibiyo taasina waa sax laakiin waxaa laga maarmaana inuu nidaamkii hagaagsanaa maro oo ah inuu horta isagu alaabtii soo iibsado la soo wareego kadibna qofkii ka sii iibiyo waxaa qalab markaa noqon karta isagoo aan weli soo iibsan inuu heshiis la galo dhammaystiraan ama isagoo aan la soo wareegin inuu qofkii yidhaahdo bakhaarka ka qaado kuwaasaa laga ilaalinaya mukhaalafaadka sharcigaa laga ilaalinaya su-aasha kale ah hooyaa ii yeedhaysa anna waan shaqaystaa hooyadaa u tago raalligeli nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimidoo wuxuu ihi waxaan kugu imi inaan waan ku imid buuhi anigoo labadeydii waalid ka imi iyaga oo ooyaya markaa rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam orod ku noqoo sidaad uga oohayse uga qosli marka halkay joogto ka shaqayso iyada raalligeli ilaa intay ku fasaxayso shaqada waxaa marka ka horeynaya idanka waalidka xataa jihaadkii markaanu mutacayin ahayn ama aanu qofka si gaara ugu waajibin waxaa la yidhi waalidkaa laga idan qaato su-aashan odhanaysa dadka masiixiyiinta ah raashinkooda ma la cuni karaa raashinka dadka kiristankaa raashinkooda waxay gowracaan waa la cuni karaa raashinka kale oo iska caadiya dee gowrici wixii gowrac u baahnaa waa la cuni karaa dee qur-aanka inoo baneeyey dumarkoodaba laakiin midhka meesha yaallaa waxa weeye dee waa inaan doofaarkii ku jirin aada og tahay laftiisu iyaga laftigoodu inay gowracaan waa inaad ogtahay haddaad ogtahay inay bakti cunaan ama doofaar ku jiro lama cunaysa waanu isguursanay marka horena waanu sii uuraynay wey su-aashanina uurkaa isaga ahay waa sino ayuu ka yimi waladkaana garac baa loo yaqaanaa marka hooyadii buu raacayaae kan isaga ee ka dhalay gabadha marka dambe haba guursadee ma raacayo caruurtiisana kama mid aha hooyadii buu ku abtirsanayaa waa walad mar haddaanu meher ku dhalanin meherka horraysiis bay idhahdaan soomaalidu carruurtooday ku daraan waase dembi waa dembi waa gef weeye waa ilmo aanu dhalinoo uu wato un marka arrintan aada ha looga waantoobo waa wax bulshadani ku ibtilaysan tahay ceebahooday ka midta ninkan yidhi ilaahay ma isku qabiil baatiin ilaahay unbaad u doodaysaa afadiisa ku yidhi ilaahay unbaad leedaha caabuda ilaahay ma isku qolaatiin waa istihzaa billaah ilaahay buu ku dheeldheelay qofka ilaahay ku dheeldheelaana waa gaal qur-aanku ilaahay ku caddeeyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay rasuulkiisa aayadihiisa ku dheeldheesheen waxba ha cudurdaaranina oo waan kaftamaya ha ku cudurdaaranina waa gaalowdeen buu ilaahay aayadda ku caddeeyey marka culimada u taga toobadda ha loo qabto gabadha dib ha loogu meheriyo su-aasha kalena waxay ahayd nin gaaloobay ayay qaar u doodaan oo idhaahdaan wuu waalan yahay isagoon waalayn hadday yidhaahdeen wuu waalan yahay inuu waashaba waa laga yaabaa hadday doonayaan inay waali ku badbaadiyaan in laga aqbalaaba laga yaaba ka daaya baynu leenahay qofku haddii garsoorka hortiisa uu yimaado oo dembi kaga caddaado xuduudda iyo xeer ciqaabeedka sharcigu dhigay mid ka mid a in loo doodo nebi maxamed baa aada uga digay calayhi salaatu wasalaam asxaabigii usaamat bnu zayd ruux dumarahoo sinaysatay ayaa nebiga hortiisa la keeno kiiskii ku caddaada waa kii nebigu lahaa nebigu uga ergeeyo dee gabadhani waa gabadh laandheeroo caynkan ay tahay oo ergu ka galay aad buu markaa nebigu asxaabigii
أهروف التشفع في حد من حدود الله ورما حير عقابات لفلين أو دينتي إلهي كم إذا بعد ودوديسا وإريه إن كي وجعل النبي عليه الصلاة والسلام marka qofkan xalka sharciga la maraya toobada loo qabanaya dibidaan ugu noqon baa lagu waaninaya laakiin laga gali maayo dhinaca in la qariyo ceebtiisa su'aashan inanku ina soo weydiiyaa guurkii baa qaali noqday maxaa la yeelayaa horta mid bulshada u taalaayo marka aayaheena laga fikirayo waa in guurka la dabciyaa dhalinyarada loo fududeeyaa isagana waxaynu leenahay dadka ilaahay uu kala duwan yahay kuwa iyagu waxa fatooshta faraha badan iyo filinjarka badan iyo fujiska badan raadsanaya iskaga tago qaar miyir qabaad helaysaa hadaa doonto miyigaba ka soo guurso waxa laga yaabaa halkii $10,000 uu ku kalifayay inaanu kun gaarin ba waxaagu marka qof dadku way kala duwan yihiin qolana talaabo dheer bay qaadaa qola mid dhexe qola mid miyir qabta marka adiga laftigaagu talaabada ha dheeraynine dadku waa kala noocyadu xataa wadanka gobolada kala duwan dadka kala duwan deegaanka kala duwan marka dad aad la jaan qaadi karta raadso way ku sahlanaan doontaa insha Allah saasha u dambaysa waxay ahayd dad aan isqabin oo wali ismehersanin oo iyagoo wali ismehersanin laakiin doonaya inay ismehersadaan inta sawirro wada galaan sawirradii Facebook soo dhigaya oo meelahan xafladii keenaya oo ninkii naagtiiba is haystaanba wayba isqadimeenba hore u qadimeeyeen waa qaar hore u soo fadhiya mushkiladii waxa dhacday xishood daradii waxay keentay dhalinyaradii rag iyo dumarba inay hore u soo fadhiyaanba waxaad arkaysaa iyagii oo isku dhagan iyagii oo isdhunkanaya iyagii oo isjiidanaya iyagii oo isxambaarsan oo hadda aan isba qabin oo wali isu mehersanayn marka waa dembi macaasiday ka mid tahay laba qof oo kala ajnabi ah sharcigu wuxuu ogoliyay markay isguursanayaan inay marka hore is eegaan wada hadlaan intay danahooda ka wada hadlayaan ay danahooda dhamaysanayaan isku qanciyaan baa loo ogol yahay xaraantii la xaraan bahay laba ajnabi inay kala wada sheekaystaan ama is eegaan xaraan bahay marka waxa loo xalaaleeyay aayahoodan ay ka tashanayaan iyo is aragooda intay isku qancayaan intaas u baxlaalahay laakiin waxaan kala dhamo xaraan marka dhalinyaradu hay iska daayeen ilaahayna ha ka cabsadeen gaarigan sawirka lagu soo dhajin waxaad arkaysaa marka qaarkood inanta sawirkeeda oo aad u weyn baa gaari lagu soo dhajinaya maxay ninka noocaas nin hinaasalaba ma ninkaas raganimadii baa ka luntay warkaalada taydan ila daawada ila wadaaga weeyday saasay ka dhigan hadaad ajaanibta tiraahdo ila daawada waxaaskayga ila wadaaga marka dabiirka wanaagsan iyo diintaba aynu ilaalino iyo akhlaaqda fiican ilaahayna laga cabsado Allah subhanahu wa ta'ala a'lam sheekh maxamed inta tiriyaan hooyaday baan amarkeeda qaataa mise ballantan oo fiiya marka kol hadaanay wali iskuursanin oo aanay wali isqabin waxaad ku dadaalaysaa inan kan isaga ah iyo hooyo inaad isfahamsiiso haddii jacayl hooyo iyo jacayl ninku hayo bal labada jacayl iswaafaji waa haddaad aaminsantahay inuu kuu qalmo weeye inanku diin ahaan iyo akhlaaq ahaan oo kufkaagii uu yahay hooyo ku qanci haddii aad ku qancin kara weydana kol haddaydaan ismehersanin inaad iska daysaa kuu fiican daacada waalidku wax weyn weeye waa laga yaabaa inkaarta gantaalka inkaarta kaa dabageyso in isagaba isku qarxadaan oo soo kala boodaan taladeenu waa taa weeye xagga sharcigana tadallum wax la yidhaahdaa jiro waalidku hadduu diido inuu qof kuf ah ku guuriyo qaadigaa la tagaayo waa la ashkatoodaa qaadigaa sidaa isugu kiin meheriya laakiin waynu dareemi karaynaa dee arrinku inuu sii adkaanayo haddii hooyo iyo waalidkii la ashkateeyo inay iyaduna dee buuqii sii badanayo marka isfahamtiistaa ku day inaad isfahamsiiso hadduu fahamkaasi suuroobi waayana hooyo raali geli wallahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaaliya miisaanka xasanaadkana u saaro innagana inagu anfaco وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوم 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 بشهر رمضان صوم